madaxweyne ku xigeenay xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed aw cali cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa guud ahaan basaaka soo gaadhay degmada xariirad wafdigan uu hogaaminayo maxamed aw cali cabdi musharaxa madaxweyne ku xigeenay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si miiqaamkeegu aad u sareeyo lagu soo dhaweeyay degmada xariirad taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee degmada xariirad oo isla markaasina ruuxayay koofiyadaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo caleemo qoyan isla markaasina muujinayay shucuurta ay u hayaan degmada xariirad xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iskugu soo baxay sharacyada waaweyn ee magaalada xariirad kumayaal dada oo ka kooban taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada xariirad ayaa saaka waxa ay muujiyeen guud ahaanba iyo isbarortaaga ay dadweynaha xariirad u hayaan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaguna saaka sheegay in codkooga ay siinayaan isla markaasina wacad ku maray in codkooga ay siinayaan xisbiga mucaaradka ee wadani dhaqan aaba kuma lihid dadka awdal yaalle ku tafiirmay diintiyo ku xigeenna deeqiyo dahab dhalaata allahu akbar allahu akbar ma maqlayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan iniigu celcelinayaa kulmiya waa shaytaankana allahu akbar baa lagu bixi dabadeedna waxba waa tii gaadhi weyday waa kuwii dalandoolay ciidankii siyaad barroo kale ayuu watay hadduu guulaysto muxuu inigu tari maraqiinnu xabisow maaha xisbiga dulmiga xisbiga dhibaatada iyo dibindaabyada ku haya dalka iyo qarankaba waxaa saamayn idinku yeeshay dhibaatooyinkiinniba halkaa aad degantihiin waa magaaladii la mid noqon lahayd wajaalo oo kale ee maanta ganacsiga etoobiya idinku uu isku weydaaran lahaa 7 sannadood baan cudcudnay oo tii ku jirno 7 kale iigu celiya miyaa yeella qodhigiyo xeradiisa ma 7 sannadood kaleed ku soo jirno 7 kalena iigu celi warma wax la qaadan karaa qodhigiyo xeradiisa wadani ka hadlay musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed aw cali cabdi isla markaasina waxa uu sheegay inay ogaayeen in raaxirada yihiin wadani dhaba waan ognahay xariirad waa maxay ku taallaa meelaha adduunka ugu qurux badan laakiin waxay u baahan tahay in la helo dawlad cadaalad iyo horumara waan ognahay in wadannada dariska laga xidhay waan ognahay in looyacadda la dhigay nin idin yidhi ha tegina Jabuuti oo ha arkina haddii kale madaxiinaan cashuuraya waxaan idin ballan qaadanaa wuxuu kala xidhay laba dal oo walaalaa oo derisa oo wax wada lahaa buu kala xidhay waxaan ballan qaadannaa waddani markuu xukunka qabsado inaanu magafa la arkaynin inaanu dib joogaynin anaa qaaday waddani baa qaaday waxaan idiin ballan qaadannaa inaad beeraha waa dhulbeereed waa magaalo baayac mushtari waxaan ballan qaadannaa in la fududeeyo isu socodka waddankaan dariska nahay ee Itoobiya waxaan ballan qaadannaa in wixii aad xaq u lahaydeen eed waddanka ku leedihiin Somaliland inaad heshaan waxaan isku dayaynaa wixii idinka qaloobayna inaad idin qablo tiri doona haddii alla yidhaahdo xariirad waa magaalo degmo ah waa magacuun waa magac baad yaad sidadaane manficii degmo waa idinka maqan yahay waddani baa idiin soo celin doona haddii alla yidhaahdo maanta waxaan dhagax dhigi doonnaa haddii la yidhaahdo gurigii madaxtooyada ee martida ee muuqaalka degmada soo celin lahaa haddii alla yidhaaho xuseen maxamed cabdilaahi bulsha TV xariirad